السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ميل كستو joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqilaada ciyaaraha harabani kastaad kala socotaan barteena YouTube-ka ciyaaraha latest tube ku soo dhawaada muuqaalkan cusub maanta ku ogi doono wararka ugu dambeeya ciyaarahaasi waxaanu eegi doonaa isreebka koobka adduunka ayaanu eegi doonaa habeenkii calayto la ciyaaray iyo weli dabcan waxaanu falaqeyn dheer ku sameyn doonaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo dhigay rikoor caalami ah runtii wow isaguna oo gadaal iska mareeyay ciyaaryahan Ali Daly wow waa ninka haysto rikoorka xagga gool dhalinta ciyaaraha caalamiga the international goals recorder haddaad nagu cusub tahay maatay markay u horeyso soo boqo channelkeena subscribe nosor haddaan naga mitana like nugu dhiirigeli channel la saaxiibo wanaagsan haddii aanayno kulamada la ciyaaray siiba kulamada ugu weyn haddii aanayno xulka qaranka Faransiiska ayaa hal la dhaafi weyn xulka qaranka Bosnia halka Denmark ay 2-1 jireen Scotland Norway iyo Netherlands ayaa ku heshay 1-1 dhibcihiina ay kala qaateen halka xulka qaranka Russia iyo Croatia iyaguna ku hesheen inay ciyaartu ku soo idlaatay eber kaasaad moodaa inay dhibcihii qaybsadeen halka Moldavia ay Austria 2-1 jirtay haddii aan ku soo laabano kulanka Portugiiska iyo Ireland waxaan moodaa in ay gool la hormareen xulka qaranka Ireland ciyaaryahan Bega ayaana gool u dhaliyay qaybtii hore sida ay ku soo qaybtii dambeeyad moodaa in daqiiqada ugu dambeysay daqiiqadii 89 ciyaar Ronaldo gool testa u dhaliyay xulka qaranka Portugiiska sidayna kulanku ku noqday 1-1 hase haatee extra time daqiiqadii dheeraadka lagu daray ayaa Ronaldo gool kale oo mucjiso leh oo fantastic u dhaliyay xulkiisa qaranka Portugiiska sidayna ciyaartay ku noqoteen xulka Portugal ay 2-1 diraan xulka qaranka Ireland Ronaldo ayaana labadiisa gool u dhigantay inuu iminka dhaliyay 111 gool waxaad moodaa in ciyaaraha Euro uu soo kaleeto uu barbaray ciyaaryahan Ali Daly iminka wuxuu noqday Ronaldo ciyaaryahanka ugu goolasha badan caalamka siiba ciyaaraha caalamiga haddii aan eegno Ronaldo goolashiisa uu dhaliyay haddii aan eegno 33 gool waa ciyaaraha World Cup qualificationka 31 wuxuu ka dhaliyay sidoo kaleeto Euro qualification 19 ciyaaraha saaxiibtinimada 14 Euro todo wuxuu dhaliyay ciyaaraha FIFA World Cup halka 5 kamida uu dhaliyay UEFA Nation League waxaana sidoo kaleeto Ronaldo 2 kamida oo dhaliyay Confederation Cup kulanka caleeto waxa xasuus midan in Ronaldo uu qalad ka galay ciyaaryahan ka tirsan xulka qaranka Ireland kaasaad moodo inuu garabka ka dharbaacay inta badan waxa loo maleeyay inay tahay mid iska cad runtii ciyaartooyda inta badan waxaad moodaa in garbi saan oo kale tahay mid iska cad balse albitra oo aaday inuu eego VAR-ka moodo inuusan wax qalad ku arkin Ronaldo si ay uga badbaaday kaarka casaanka kulamada kale oo la filayay in la ciyaaro caawa waana kulan ka tirsan isreebka koobka adduunka laga soo baxay siiba qaadaha Yurub ayaanu diiradda saari doona waxa jira dhowr kulan oo la ciyaari doono caawa iyo waliba maanta balse waxaanu eegi doonaa kuwa ugu muhiimsan oo isha lagu wadayo caalamka sida wargeysyada caalamka ay kamid yihiin Ingiriiska ayaa is arki doono xulka qaranka Hungary halka soo kaleeto Talyaaniga ay wajahi doonaan Bulgaria Sweden iyo Spain ayaa soo kaleeto is arki doona waxa soo kaleeto balansan xulka Estonia iyo waliba Belgiumka xulka qaranka Jarmanka ayaa soo kaleeto waxay marti noqon doontaa xulka qaranka Liechtenstein waxa soo kaleeto ciyaari doono Poland iyo waliba Albania kulamadan ayaad moodaa in xul kasta ay doonayaan inay isku dayaan inay dhibco helaan si ay ugu soo baxaan ciyaaraha World Cup-ka lagu qaban doono xagga dalka Qatar haddii aan ayno runtii Portugiiska aad moodaa iminka inay hogaaminayaan groupka ay ku jiraan iyagoo leh 10 dhibcood soo kaleeto Ingiriiska ayaana groupkooda ugu horeeyo Faransiiska ayaa soo kaleeto hogaaminaya halka Jarmanka ay soo kaleeto waxaan moodaa in kooxaha weyn inta badan ay horkacayaan gruubyada gruubyadooda inay hogaaminayaan waxaa soo kaleeto xasuus midan in kulanka caawa Ingiriiska uu ka maqnaan doono dhowr ciyaaryahan oo muhiim ah soo sheegay tababaraha xulka qaranka Ingiriiska Southgate waxaana soo kaleeto ka maqnaan doona xulka qaranka Ingiriiska ciyaaryahan Rashford walaacib ka tirsan naadiga Manchester United mooda inuu ku maqay cagayo dhaawaca Rashford ayaa qalin lagu sameeyay dhanka garbaha mooda iminka inuu ka soo kabanaya waxaana uu sheegay tababaraha naadiga Manchester United Ole Gunnar Solskjaer in laga yaabo Rashford inuu dib ugu soo laabto barka buuca naadiga Manchester United
maalmaha soo socda soo kaleeto waxaanu eegi doonaa suuqa mucjisaleed oo soo xirmay qaaradaha Yurub siiba suuqa kaliibsiga cagaaga Ronaldo ayaa dib ugu soo laabtay naadiga Manchester United 12 sano kadib wow runtii Ronaldo muddo qaab ciyaareedkiisa ayaa runtii mid aad u wanaagsan marka haddii dib ugu soo laabto Old Trafford siiba kulanka Newcastle ayaa la filaya in ciyaaryahan Ronaldo uu safto waxaad moodaa iminka maaliyadda naadiga Manchester United inkastoo logeen funaanada ama lambarka rasmiga uu qaadan doono ciyaaryahan Ronaldo iminkaasi waxaa soo kaleetay dalabaad laga helaya boqortooy Queen Elizabeth ayaa soo kaleetay dalab rasmi ka soo dirsatay maaliyadda Manchester United wow soo kaleetay waxa mucjiso leh oo la yaab loo arkay in ciyaaryahan Griezmann aandho dib ugu soo laabtay naadigiisa Athletic Madrid Griezmann ayaa si ahmaha ku soo laabtay Athletic Madrid tababaraha naadigaasi Simon ayaa mooday inuu taageero weyn u yahay laacibkan u dhashay dalka Faransiiska gooshi caleetiyo Faransiiskana soo kaleetay isaga ayaa dhaliyay wow waxa soo kaleetay aanu ka baranay oo mucjiso in ciyaaryahan Dini iyo dib ugu laabtay Serie B-da waana Serie B-dii uu ka soo baxay naadiga Watford Dini ayaa la joogay naadiga Watford 11 sano iminka wuxuu dib ugu laabtay naadiga Birmingham oo ka ciyaarta Serie B-da mucjisada ayaa kamid ah in ciyaaryahan ku soo biiray Premier League uu dib ugu laabto Serie B-da inta badan maahan mid badan ama mid dhacda Dini ayaa moodaa inuu runtii aad muhiim ugu yahay naadiga Watford ayaa kulanka ugu dambeeyay la ciyaartay naadiga Tottenham Hotspur ay hal ever looga badiyay waxaana Dini iminka yahay ciyaaryahan ka tirsan naadiga Birmingham City ka ciyaara heerka labaad ee Premiership-ka wow dhanka leh ciyaaryahan Kylian Mbappe moodaa ku biiritaankiisa naadiga Los Blancos ayaa waxa hor istaagay naadiga PSG Real ayaa diyaar kulaha inay siiyaan naadiga PSG adduun dhan 200 milyan balse waa ay diideen in ciyaaryahan Kylian Mbappe ay marnaba ay fasaxaan waana ciyaaryahan runtii muhiim u ah naadiga PSG haddii ay qaab ciyaareedkiisa iyo kulamada uu soo bandhigo waxaa soo kaleetay habeenka ugu dambeeya diiday fursadooyin kale dahabiya ay iskaga tagi lahayn naadiga Manchester United ciyaaryahan Van der Beek ayaa diiday inuu ku biro naadiga Everton soo kaleetay Antonio Martial ayaa diiday inuu ku biro naadigiisa hore ee Olympiacos Lyon kaasaad mooday in labadaba ay diideen waxaana ay sheegeen inay u dagaalamayaan booskooda Old Trafford tababaraha naadiga Manchester United Ole Gunnar Solskjaer wargeyska Daily Sport ayaa sheegay in labada ciyaaryahan iminka ay go'aansadeen inay u dagaalamayaan booskooda barnaamijka sported kala socoteen ciyaaraha la testub ee ciyaaray waanaga inta